Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Baan idin salaamay dhammaantiina meel kasta joogtaan ba halka laga socotaan waa Najxa channel iyo anigoo Najxa. Asxaabtiga qaaliga maanta khaasatan gabdhaha ayaan la hadlay walaalahayga ah ee ka cabanaya faraha madmadowga ama cagaha ama meelahaas xubnaha gacmaha laga shaqeeyo. taas ayaan maanta idin wadaa sida aad isaga nadiifin clean gareyn lahayd ama aad habeen kasta marka shaqadaada hawshaada aad dhameysatid aad iskaga nadiifin lahayd. Waxaad soo qaadaysaa xabad liin dhanaan ah, waa taas liin dhanaanta aragtiin oo akhtarka ama ay liin dhanaan haysatid soo qaadaysa biyo baad ku raadinaysaa markaad ku radisiin waad karinaysiin dabka saarsan. Markaad dabka isku saartid biyihii aad liin dhanaanta ku dartay waxaad sameynaysaa markii liin dhanaantu ay jilcdo ayaad soo qaadaysaa liin dhanaantii biyihii baadana khalaadka lagu shiido ayaad ku shiidinaysaa yar. Markaad ku shiidatid waxaad sameynaysaa markaad ku shiidatid oo soo qaadaysaa cilbada diyaarsatay ama caanyadii yar oo cream ka dhamaaday baad ku radin ayaad ku soo shubanaysaa. Markaad ku shubatid waxaad soo qaadaysaa creamka Gersiliin ama Grimsiliinka Ethiopianka iyo vitamin A soo qaadaysaa waad ku daraysaa vitamin A iyo creamkii oniga idii soo raacin. Habeen walba hawshaada markaad dhameysato ayaad faraha u marinaysaa. Maasha Allah kaala arag wax badan ayaad ka arki doontiin aniga insha Allah tijaabiyay. Maasha Allah tabarakallah madmadow iyo xubno dambe oo waxaan ku guduudo ma isku arkaysiin. Asxaabteeda aad mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah channelka dadka cusubtayna subscribe